لكن waxaan leeyahay maanta Somaliland insha Allah doorashadaas soo socota in Ilaahay dadka Somaliland kala badbaadiyo oo guul ay ku dhamaato cidii hashaba inagu calafkeenan ka qaadaynaa waxaan qadarkan Ilaahay baa qoray arshiga ka qoran tahay waligeed oo cid hadam damlayso waligeed kulmiye hays wareeriyo arshiga hadaanay uga qornay ilaahayna waa caadilo woogiyo kulmiye dambigu geystay ilaahay waxaan maanayaa caadilo inagu soo cilmaayo kulmiye inagu soo cilmaayo labada xisbiga kale ee mucaaradka ee aan iyagu loo dhiibin cidii ilaahay uu gartay arshiga uga qoray in baan u arkaa anigu inay helayso sanadkan maanta ya xisbiyadana waxa la inoogu sameeyay in qabyaalada la kala ilaaliyo in reeruhu ay cid walba xisbi ay gasho oo ay dadku kala qaybsamaan ayaa la inoogu sameeyay laakiin waxa nasiib daraa in xisbigii dhamaa ee talada hayay oo isagii qabyaalada inoogu kala qaybiyo oo inta shirkoodii weynaa ee shirweynihii la isugu yimaado halka inta board lagu qoro la yiraahdo reer hebel ba halka fadhiya halkaasna si siyaarooyin reer hebel halkaasay fadhiyaan hadda waa xisbigii dhamaa ee qaran waa daahir ya shams baashi oo qabyaaladii oo loo soo cumaamaday ayaa oo far waaweyn lagu soo qoray ay kulmiye horta inoo leeyid waa waxa laga xishooday weeyaan waxa anigu horta fariinta halkaan ka diray maanta ila fariintan maanta waa television baa laga duubaya waxaad ogaataa wax taariikhda galaya maanta safarkani waa safar taariikhda galaya iyo qodbadahan iyo waxa halkaan aanu ka leenahay هددو وريجي ما أرجع ولا عسترني سبحانك يا عظيم waxaan leeyahay anigu dadka reer Soomaaliland dul ha isku yeeshaan maanta meel xasaasiyo marayna qarannimadeennii la doonayaa la weeqo dadka la doonayaa in la isku diro dadka la doonayaa shaki laga kala geliyo maartay arin reer Soomaaliland dadka reer awdal oo kacsan bariyahan dadka reer awdal ee bariyahan kacsan waxaan leeyahay walaalayaal Soomaaliland waa ogtihiin oo idinka utunteeda aasaasay boorama hadii maalintii shirkii aydan ka qayb gal lahayn oo aydan dadkii istilayay iyo heshiiskii aydan ka qayb gal lahayn maanta Soomaaliland halkaas ma joogteen wixii aad dhisteen ayaa la idinka doonayaa inaad samar u yeelataan xukuumadani waa xukuumad tegaysa doorasho la gali doonaa insha Allah ninkii doonayay ninkii diidanba doorasho waa la iman doontaa farta lagu codeynaya dadka reer Soomaaliland fartooda ayaa khayrka iyo sharka u haysa war intaas uu samar baan leeyahay inaga farteena ku tuuri doona cidaynu doonayna farteena ku keeni doonee walaalayaal samar baan leeyahay siyaasadda ciyaara walaalayaal waxa weeye reer awdal waa la idin juqaynaya ogaan baana la idin juqaynaya reer barbar waa la juqaynaya reer Hargeysa waa la juqaynaya arrinkan kulmiye ee wareersan ee iyaga doorashadooda dadku ay ku mashquuliyeen iyaga dhexdoodii bal imka reer kul adad imka Hargeysa tagtid Hargeysaan ku nimid waxa bad moodaaba qolooyinkan kulmiye oo cararaya dalka waxa ka socda kama warhayaanba iyaga madaxweynayaal soo haystaba waxay soo haystaan kii kulmiye ka soo dhaxbaxa inuu automatic madaxweyne noqonayo kulmiye dalku wuxuu ka geystay dambigu ka geystay in iyaga dumadooda tahay kuwana kulmiye u tartamaya kama warhayaan halka ay istaagan yihiin ee dadka la dhibayo ee aanay ka hadlayn xatooyada la xadayo ee aanay ka hadlayn war makaasa federaalkan la tagay ee dadka maartay Soomaaliland qadiyada Soomaaliland lagu dhaawacayo ee aanay ka hadlaynin daadarka kulmiye ninka inta ka hadli waayay makaasa madaxweyne loo dooran karaya ama mowqif adag yeelan kari waayay nin noqon waayay war dadku idinka warhaya هددو وريجي ما أرجع ولا عسترني سبحانك يا عظيم